السلام عليكم كلنتي wanaagsan kusoo dhawow muuqaalkeeni koowaad ee casharadii bilowga ahaa ee Photoshop. Haddaan ku bilowno waa maxay Photoshop? Photoshop waa software ay leedahay ama soo saartay shirkadda Adobe loo yaqaan, isla markaana loogu talagalay in lagu abuuro laguna edit gareeyo oo wax looga bedelo sawirrada. Photoshop wuxuu isticmaalaa layer based editing system. Layer based editing system wuxuu ka dhigan yahay inuu kuu suurtagelinayo inaad abuuri kartid faylal ka kooban lakabyo iskor saaran, isla markaana kuu suurtagelinaya inaad hal fayl ku ururin kartid, hal documenti ku ururin kartid objectiyo aad u fara badan ka soo qaad sawirro ama waxyaalo badan iskor saari kartid, isla markaana awood kuu siinaya inaad samayn kartid file transparency ama background lahayn. muuqaalkeena koowaad waxaan ku qaadan doonaa interface introduction-ka ama hordhaca wajiga hore ee Photoshop. haddaan ku bilowno Photoshop waxaa la soo saaray 1980-yadii. dabcan Photoshop ilaa maantii la soo saaray ilaa maantada aan joogno version badan oo kala duwan baa la soo saaray, features badan baa lagu soo daray, waa la horumariyay. versionba versionku ka dambeeyay waana ka fudud yahay, waana ka shaqo badan yahay oo uu ka features badan yahay. laakiin waxa sida caadiga ah aan wax badan laga bedelin oo maxaan ku raahday isbedel badan lagu sameyn waa interface-ka hore ee Photoshop-ka ama meesha lagu shaqeeyo loo yaqaan wajigan hore dokumentiyada lagu edit gareeyo wax looga bedelo. marka wax laga yaabaa inaad isticmaalaysid version aan ahayn kan isticmaalaya. dabcan anu hadda waxaan isticmaalayaa CS6, Photoshop CS6 baan isticmaalaya. waxa laga yaabaa inaad isticmaalaysid version ka horreeyay ama ka dambeeyay. marka maadaama interface-kan wax badan laga bedelin uma baahna inaad waxa muhiim ah inaad casharka la socotid aadan focus ka saari inaad version kale isticmaalaysid. marka Photoshop markaad soo kicisid oo computerka aad ku shubatid oo Photoshop software soo start garaysid soo kicisid, waxa laga yaabaa in aysan ku ahayn qaabkaani interface-ka iyo hadda u sameysay u jeedid. waxa dhici karta inay ka bedelan tahay ama maxaan ku raahday aad horey wax u isticmaashay oo baanaladan iyo wax ka kala bedelayeen. marka si aad u heshid interface-kan isticmaalaya oo default-iga ah kan ay Photoshop ku soo kacdo marka u horeeya weeye oo ay si default ahaan ugu samaysan. si aad u heshid interface-kan oo aan isku mid u noqono aan maxaan ku raahday si fiican u wada socono, waxaad u baahan tahay inaad Windows tagtid, kadib ka dooratid workspaces, kadib ka dooratid essentials, kasii dooratid essentials waa default-iga workspace-ka default-iga ay Photoshop ku soo kacdo sida caadiga marka hore. dabcan markii ku soo kaco waxa laga yaabaa inaad u baahantid inaad iska bedeshid color-ka. si aad color-ka isaga bedeshid interface-ka color-ka ama cadaan ama madow ama gray ka dhigatid tusaale ahaan. dabcan color kooban baa Photoshop-ka interface-ka laga dhigi karaa. waxaad tagi kartaa edit markaad Windows isticmaalaysid weeye oo midka Windows kugu shuban yahay Mac ahayn. waxaa kasii dooranaysaa preferences waxaa ka dooranaysaa interface markaa click siiso wax ku soo bixi doona Windows-kaas ay ku qoran tahay general interface, file handling, performance, waxaasoo dhan. marka interface baa inaga ka dooran. si aad color-ka marka u bedeshid batamada color-rada kala duwan ee ka muuqdaan baa click siinaysaa ka baahan tahay. tusaale haddaan gray ka dhigo gray bay noqonaysaa, haddaan gray oo light ah ka dhigo saasuu noqonaya, haddaan mid ka sii cad ka dhigo saasuu noqonaya isbedelaya. marka adu dabcan kii aad u baahan tahay dooran kartaa, wax badan waxba iskama bedelayaan interface-kii color-ka un baa isbedelaya. kii aad marka ku qarastaa dooran kartaa. marka anu waxaan rabaa graygaas aan doortay, then markaad bedelatid waxaad taabanaysaa okay. saasuu interface-kaagii color-kii aad ku dooran kartaa. marka Photoshop interface-ka hore ee meeshan lagu shaqeynayo dabcan sida software-rada caadiga ah waxay leedahay standard toolbar ama toolbar caadiga ee software-rada leeyihiin file iyo edit iyo waxyaalahaas oo dhan laga helo. marka sida ku muuqata wuxuu ka bilowdaa file, edit baa ku image baa ku xiga, layer baa ku jira, tape, mid walba shaqooyin gaar ah inoo qabanaya aan hadhow arki doona insha Allah oo wax badan aad uga gudbi doontid. marka si aad interface-ka wax badan uga fahanno wax soo furaynaa file. marka waxaad tagaysaa file, open baa dhehaysaa, waxaad tagaysaa Photoshop tutorial folder-ka
ay ku qoran tahay oo practice-ka la socda ee maxaan ku dhahay muuqaalka. haddaadan haysanna dhib ma laha, waxaad soo furan kartaa fayl kale oo meelaha ku yaala. dabcan waa caadi, laakiin waxaa muhiima inaad haysatid documentigaas. waxaad markaad folderkii gashay waxaad kasii dooranaysaa introduction, dan waxaad kasii dooranaysaa Photoshop interface, click baa siinaysaa. waxaad kala soo baxaysaa faylkii halka kugu jira Photoshop interface baa qoran, open baa lahaysaa. open markaad dhahid waxa kuu soo baxaya documents oo samaysan ama fayl qaabka oo samaysan. faylkii markuu soo baxo halka waxa kaaga muuqda document tab shaqo noo qabtaa oo arki doonaa. document tab korkiisa si fiican u fiiri, meeshaas ay fallaarta ka bilaabata ilaa ku dheersan dhanka kale meesha essential qoran tahay waxa la yiraahdaa control panel ee ka hooseysa standard toolbarka caadiga ka hooseysa waxa la control panel wuxuu si gaar ah ula shaqeeyaa wax loo yaqaan toolbox ama wax loo yaqaan toolska. marka toolsku waa tiro badan yihiin, shaqooyin kala duwan way ku qabanayaan oo mid walba shaqo gaar ah ku qabanaysaa. waxa laga yaabaa toolska marka in ay intaa sida caadiga ku muuqato ama sida defaultiga wax ku muuqanaysa intaa kor ka muuqata. toolska marka intooda badan waxay hoos ku leeyihiin si fiican u fiiri fallaarta yar waxay ku tusinaysaa inuusan toolkaas halka kaaga muuqda ee defaultiga ah inuusan keligii halka ahayn ay ku hoos jiraan kuwa kale. marka si aad u saartid click si dhinac baarahay waa ku soo baxaya kuwa kale isla isaga ah isku shaqo qabanayaan laakiin nooc kale shaqada u qabanaya. kan sidoo kale dan click si isagana right click baan siin karaa ama cabaar baan click ku hayn karaa waa ii soo baxaysa. marka kana sidoo kale fallaar baa la socota, kana sidoo kale fallaar baa la socota. dabcan intooda badan boqolkiiba 90 waa la socotaa, wax yar bay ka maqan tahay move toolka oo kale. move toolka waa keligii oo ka move toolka waxa la yiraahdaa kan u koreeya. insha Allah waxaan qaadan doonaa toolskan iyagoo muuqaal gooni ah ku qaadan doonaa oo dhameystiran qaabka uu shaqeeyay shaqada ay qabanayaan ku sharxi doonaa. marka control panel-kan u soconay, control panel-ku wuxuu si gaar ah ula shaqeeyaa oo dhow wax loo yaqaan toolska halka ku taxan. haddaan click siiyo dabcan waxa ii soo baxaya control panel nooca. haddaan kan si click siiyo mid nooc kale baa ii soo baxaya. haddaan kan doortana waxa ii soo baxay mid kale nooca. haddaan kan doorto waa isbedelaya. marka shaqada uu qabto control panel-ku waxay tahay toolka halka ka dooratay iyo option-kaas siinaya. option-ku wuxuu ka dhigan yahay toolka halka ka doortay qaabka uu u samaysan yahay ama shaqada aan markaa ku qabanayo de selection-kaas oo kale tahay wuxuu awood ii siinaya inaan selection-kii ama add ku dari karo ama maxaan ku idhaahdaa subtract ka samayn karo, wax ka jari karo intaan doortay. marka si guud control panel-ku wuxuu la shaqeynayaa toolbox-ka, wuxuuna ula shaqeynayaa wuxuu ku badinayaa option-kii toolka halka ka dooratay. waa arki doonaa qaabka uu shaqeyn waan isticmaali doonaa. marka uu toolskii qaabka u samaysan yihiin oo qaabka isu daba yaalaan waxaa dhici karta inaad u baahatid oo kale inaad hal column u samaysan inaad wax ka bedeshid oo toolka laba column oo kale u baahatid inay ama ballaarisid ama aad hoos u dheeriyay tusaale aad gaabisid. dabcan toolsku waxay kor ku leeyihiin fallaar yar oo dhinaca midig u jeeda bay ku leeyihiin. marka fallaarta dhinaca midig u jeeda haddaan click siiyo wuxuu noqonayaa toolbox-kaygii. toolskay waxay noqonayaan laba column bay noqonayaan dhinac yaala. haddii aan u baahdo inaan dheerayno fallaarta baan click siinaya dib baan u soconay sidoo ugu dheeraanaya. marka insha Allah saasaan u daysanaynaa, saasaan ku isticmaali doonaa dhammaan casharada dambe oo soo socda. marka toolska si fiican u fiirisid meesha hoose waxay ku leeyihiin laba boqos. labada boqos waa muhiim qofka Photoshop bilowga ah inuu fahmo. labadan boqos marka waa laba color. labada color waxa la kaleeyahay foreground iyo background. foreground waa colorka ay qaataan dhammaan wixii background ka sokeeya, ha ahaato text, ha ahaato maxaan ku raahdaa shape oo kale. tusaale ahaan shape-kan halkan haddaan foreground-ka madow yahay ama grey-ga haddaan doortay, haddaan shape soo qaado kalkaas si default ay yeelanaya. haddaan qoraal qorana wuxuu noqonayaa madow buu noqonayaa. foreground baa lahaa. background-kana waa colorka background-ka sida default-ga Photoshop-ka. background-ka badanaa waa caddaan. marka background-ku waa background-ka ka dambeeya qoraalka qorto oo kale background color-ka. haddaad u baahatid inaad bedeshid marka click baa siinaysaa wax ku soo baxaya color picker-ka marka halkaas color-ka u baahantaad dooranaysaa kaasa wax ku noqonaya foreground. background-ka u baahatid inaad bedeshinaysaa click baa siinaysaa sidoo kale wax ku soo baxaysa color picker.
color picker wuxuu ka dhigan yahay meel aad color ka dooran kartid oo badan. Haddii aad web wax u design garaynaysid halkaas aad tigta saaraysaa, then wuxuu ku siinayaa colorada kooban aad ka dooran kartid. then colorka markaad dooratid intaa ka bacdi waxaad dhahaysaa okay, colorka saas kugu dooran yahay. haddaad si fiican usii fiirisid labada color korkooda waxaa ka muuqata fallaar yar oo laba dhinac ujeeda. fallaarta labada dhinac ujeeda marka waxay ku suurta gelinaysaa inaad labada color ee foregroundka iyo backgroundka inay isdaba marin kartid. haddaan rabo inaan foregroundka backgroundka dhigto, dabcan background waa kan hoose wey, foreground waa kan kore. haddaan foregroundka rabo inaan backgroundka dhigto, click baan siinay oo bedelay isdaba maraya. haddaan rabo inaan backgroundkina foreground keeno, click baan siinay soo dhaafaya. waxa kaloo iyadana meesha ka maqnayn haddaad sii fiirisid dhinaca kore ee bidix ee labada colorka foregroundka waliba korkiisa kusii aadan waxaa kaaga muuqda isla labadii color ee halka kaaga muuqday icon u eg. iconkaas wuxuu kuu suurta gelinaya awood kuu siinaya markaad click siisid inuu si default ah kugu celiyo. si default ah waxay ka dhigantay colorada caadiyan ee Photoshop marka u horeysa soo kicisa kuu jooga oo base ah waana madow iyo cadaan. haddaan bedelo ka soo qaad kana kala bedelay casaan baan ka dhigay, kana waa bedelay jaalaan ka dhigay ama cagaarkaas. okay gotaan labadii color waa isbedeleen. haddaan u baahdo inaan sidii caadiga ahayd ee default-ga ahayd ku celiyo, maxaan sameynayaa buttonkaas un baan click siinaya. marka foreground iyo background color halka labada focus ee halka kaaga muuqday toolka meesha hooseysa ku yaala baad ka dooran kartaa. hadda default ku celinaysid buttonkaas hadda isdhaafinaysidna labada fallarood baa click siin kartaa. haddaa rabtid inaad ka bedeshidna click baa siinaysaa, dan waxaad dooran kartaa colorka noocaad u baahan tahay, then okay baa leedahay. foreground and background color marka qaabkaas u shaqeeyaan. documentiga inoo furan marka wax yar haddaa fiirisid halkaa kore waxaa kaaga muuqda document tab wuxuu ka dhigan yahay documentiga magaciisa meesha ku haysa iyo maxaan ku rahdaa informationkiisa iyo wixii sida ku saabsan meesha inoo hayn karta. marka document tab shaqada inoo qabato waxay tahay tusaale ahaan waxay inoo haysaa documentiga magaciisa nooca uu yahay. hadda kan inoo save garaysa bs interface.tif noociisa tifa typekiisa. waxay kale inoo haysaa percentage-ka inoo zoom garaysan yahay kan filekeena halkaa ku jira documentiga. haddaan zoomkiisa fogeeyo waxay noqonaysaa 42 si fiican fiiri. haddaan sii fogeeyo 38, haddaan sii yaro 35%, 31, 28, 26, 23, 21 taasay noqonaysaa 19. haddaan soo weyneeyo sidoo kale waa soo weynaanaysaa, tirada waa kordhaysa. hadba waxay noo sheegaysaa percentage-ka ama actual size-ka soo zoom garaysan yahay filekeena halkaa ku jira bay noo akhrisaa. waxay kaloo noo akhrisaa color mode waa nooca maxaan ku rahay documentigaaga nooca color ahaan nooc u isticmaalay. waxaana la set garayaa marka fileka aad abuuraysid waa arki doonaa oo la set garayaa iyo inta bid u yahay. intaasoo dhan waxaa inoo haya document tabka marka wuxuu kaloo inoo qabtaa shaqo kale oo muhiima. tusaale ahaan file baan soo furayna, mid cusub baan ku darana, new baan tegaynaa, then okay baan leenahay. mid kale isagana xogaa soo zoom garee, mid kale isagana file new waa gartay, mid saddexaad ku dar haddaa rabtid. okay saddexdaa file halkaa ku yaala. kan hore waa ka bs interface buu ahaa, noociisuna tif buu ahaa. kan maxaa weeye bs untitled baa ku qoran 1, untitled 2 isagana sidoo kale, untitled 3 baa isagana qoran. marka wuxuu kaloo inoo qabtaa document tab. haddaan click siiyo magacaas waxay noo saarayaa bs interface oo documentigeeniyan cashirkeena koowaad ku sharxanayna ah. haddaan kan sii click siiyo wuxuu isu saarayaa documentiga magacaas kale. haddaan tabkan kale click siiyo wuxuu isu saarayaa documentiga kale. dabcan waxaad isticmaali kartaa kasoo qaad magacyo, waxaad isticmaali kartaa faylal fara badan kusoo furnaan kara, waa iskaga dhaafi karaa. haddaad u baahatid inaad labada isku xijisid maxaa bahaysa kana jiidaysaa waa dharaagaraynaysaa kana dhaafinaysaa sii daynaysaa. haddaad si fiican u fiirisid document tabka wuxuu banaanka ku leeyahay dhinaca midigta koonaha close haddaan click siiyo faylkaas waa xirmaya. kan haddaan click siiyo isagana waa xirmaya. kan haddaan click siiyo isagana close haddaan click siiyo waa xirmaysaa. saas ku xirmay. haddaan kan sii click siiyo isaguna saas ku xirmaya. marka xirmeyno cashirkeennii
documentigan ku isticmaalayna documenta marka shaqadaas uu qabtaa iyo shaqooyin kale oo ay kamid tahay inaad wax uga kala gudbi kartid filekan inta qaadid document kala geyn kartid idan oo arki doona hada hoos fiirisid marka si fiican iyadana wax kale muhiim ah qofka inuu wax ka ogaado meeshan hoose waxa la kaaga muuqda box ay tiro ku qoran tahay tiradaas waxay ina tusaysa ama awood inuu siinaysa inaan fahmi karno percentage-ka uu documentigeena halkaa ka muuqdo uu soo zoom gareysan yahay macnaha uu soo dhow yahay haddaan soddon hadda konton baan ku jira haddaan soddon geliyo oo enter dhaho wuu yaraanaya haddaan sii yareeyo wuu sii yaraanaya 20 haddaan geliyo wuu sii yaraanaya marka qaabkii u gelinaysaa click baa siinaysaa helad baa saaraysaa waxaa qoraysaa caadi ahaanba waxaad u qoraysaa tiradii haddaan konton shan ka dhigo enter dhaho oo soo zoom garoobay marka waxay si special ana ku haysaa percentage-ka oo filekeena noo soo gareysay haddaad dhanka midigta wax fiirisaa halka wax kaaga muuqda line yar oo dhuuban oo wax ku qorayihiin waxa ku qoran 16.3 tira wax caynkaasa dhankan wuxuu ku leeyahay falaar marka falaarta hadda click siisid waxa kaaga soo baxaysa oo halka ka dooran kartaa information-ka uu bahalkaas halka inuu ku soo saarayo bahalka ka saari kartaa haddaan scratch size doorto oo soo baxaya haddaan document size doorto uu soo baxaya wuxuu soo saarayaa actual size-ka filekan computer ahaan hard drive-kayga intuu ku fadhiyo hard disk drive-kayga intuu yahay intuu kaga fadhiyo wuxuu kaga fadhiyaa 5.2 megabytes soo ma jeedid haddaan ka bedelo document dimension doorto wuxuu saarayaa cabirka caadiga ah ee filekan dhankan wuxuu yahay 16 dhankan wuxuu yahay 8 centimeters waa 300 resolution-kiisa pixel per inch saas inoo saaraya haddaan kaloo doorto ka soo qaad current tool wuxuu saaraya toolka halka ka doorto magaciisa kan haddaan doorto move tool baa soo baxay si fiican fiiri kan haddaan doorto soo baxay polygon lasso kan waxaa soo baxay quick selection kan waxaa soo baxay rectangle kan waxaa soo baxay hand kan waxaa soo baxay zoom طبعا shaqada uu ku qabanayo marka aad dooranaya dabcan hadda sida caadiga marka default-ga hore ku celinayna document dimensions shaqo kale oo qabto oo muhiim iyaduna xitaa wuxuu tusiyaa progress-ka marka aad wax save gareynaysid saving-ka file-ka hadduu culus yahay oo kale wax laga yaabo waxa ku daaho marka intuu percentage save gareys markaas kaga saaraya maraya konton maraya boqol maraya 99 dabcan save gareey marka saas ku shaqadaas kala muuqata dhanka midig fiiri photoshop-ka interface-ka halka waxa kaaga muuqda waxyaalaha halkaas u suran layers oo kale waxa la yiraahdaa panels waxay qabtaan ama ay ku hayaan features gaar ah kan oo kale wuxuu noo hayaa lakabyada uu ka kooban yahay bahalkeena kan tufaaxdaas oo kale tan oo kale tufaax cagaaran oo kale ciwaanka casharka oo kale waxaas oo dhan waxaan hayaa layerska halkan kale waxa colorka oo featureska panelkaas wuxuu noo qabtaa wuxuu si gaar ah u qabtaa colorka meesha ka dooran lahayd oo kale inuu ku saaro swatches baa asna ku soo jira dabcan panelska mid walba uu qabtaa shaqo gaar ah waxa halka kaaga muuqda marka kuwa fidsan kan oo kale waa fidsan yahay kale waxsan yahay kan halka wax kaga sii muuqsan mid xoogaa da clicks iyo soo baxaya kan sidoo kale adjustment baa ka muuqda adjustment waa kaas haddaan clicks iyo styles meesha ku qoran tahay waxa halka si ku sii jira panel kale panelkaas ay soo baxay kan sidoo kale layers baa halka ay furan haddaan kan si clicks iyo waxa soo baxay journalist ka ku jira click baan sii kaas soo baxay sidoo kale halka waxa ku jira panel kale laakiin markii aad button-ka click siisid ku soo bixi kara hada history baa halka ku jira panel history la yiraahdo click baan siinay soo baxay haddaan ku celiyo uu noqonaya kan oo kale properties way haddaan click siiyo soo baxay haddaan ku celiyo uu noqonaya marka panelska mid walba shaqo gaar ah noo qabtaa muuqaalkii uu horeeyay casharadii bilowga Photoshop-ka aan ugu talagalnay dadka bilowga ah ama hadda baranaya Photoshop oo base ah muuqaalkeeni koowaad intaasaan kusoo gabagabaynaynaa insha Allah muuqaalka xiga wax kaga hadli doonaa Photoshop panelska ama workspace-ka iyo panelskan tusaale kuwan oo kale qaabkaad u dhisan lahayd panello adiga ku gaar ah aad ku qanacsantahay shaqadaas specific oo quseeya waxaan dhisi doonaa workspace dhameystiran qaabka xirmaan qaabka soo galaan baan arki doonaa muuqaalka ku xiga وإنه يخرج دم وحيصله